Sheekada 15aad Dhulkii ballanqaadka. Ugu dambayntii, waxaa la gaaray xilligii ay Israa'iiliyiintu geli lahaayeen dhulka Kancaan, dhulkii loo ballanqaaday iyaga. Yeshuuca wuxuu u diray 2 basaas inay tagaan magaalada Yerixo oo ahayd magaalo leh derbiyo aad loo adkeeyey. Magaaladaas waxaa ku noolayd gabar jirkeeda ka ganacsata oo la yiraahdo Raxab. Raxab ayaa 2dii basaas ee la soo diray ku caawisay inay ka baxsadaan magaalada, waayo waxay ahayd gabar Ilaah rumaysan. Waxay u ballan qaadeen inay Raxab iyo qoyskeeda la ilaalin doono marka Yerixo ay soo weeraraan. Israa'iiliyiintu waxay ka tallaabeen webiga Urdun si ay u tagaan dhulka loo ballanqaaday. Ilaah ayaa wuxuu u sheegay Yeshuuca inay wadaadadu hormaraan. Markay wadaadadu lugtooda taabatay webiga Urdun, biyihii webiga ayaa joogsaday. Israa'iiliyiintiina webiga oo khalalan ayay mareen oo ay ka gudbeen. Markay dadkii ka tallaabeen webiga Urdun, Ilaah ayaa la hadlay Yeshuuca una sheegay sidii ay ula dagaalami lahaayeen magaalada awoodda badan ee Yerixo. Ilaah wuxuu ku amray in ciidanka iyo wadaadada ku dul wareegaan magaalada 6 maalmood, maalintiiba hal mar. Maalintii 7aad ayay Israa'iiliyiintii socod ku mareen 7 jeer magaalada hareeraheeda. Markii ugu dambaysay ayaa wadaadadii afuufeen buunka. Kadib derbiyadii Yerixo ayaa dumay. Israa'iiliyiintiina way burburiyeen dhammaan wixii magaalada dhex yaallay sida uu Ilaah ku amray. Waxay badbaadiyeen Raxab iyo qoyskeedii oo waxay ka mid noqotay Israa'iiliyiinta. Dadkii kale ee Kancaan ku noolaa markay maqleen waxa Yerixo ka dhacay, aad ayay u cabsadeen. Ilaah wuxuu ku amray Israa'iiliyiinta inaanay wax nabad ah la samaynin dadka Kancaaniyiinta. Laakiin dad Kancaaniyiin ka tirsan oo la yiraahdo Gebicooniin ayaa Yeshuuca been u sheegay oo ku yidhi, innagu kama tirsanin Kancaaniyiinta oo meel fog ayaan ka nimid. Waxayna Yeshuuca ka codsadeen inuu nabad siiyo iyaga. Laakiin Yeshuuca iyo dadka reer Israa'iil toona Ilaah ma aysan weydiinin waxa ay samayn lahaayeen. Kadibna Yeshuuca wuu la heshiiyey Gebicoontii. 3 maalin kadib ayay Israa'iiliyiintii ogaadeen in Gebicooniyiintu ku noolaayeen Kancaan. Kadibna aad ayay uga xanaaqeen, laakiin waxba kuma aysan samaynin iyagii, waayo ballan nabad ah ayay la galeen. Markii ay boqorrada kale ee Kancaan ee reer Amoor maqleen in Gebicoontii heshiis la saxiixdeen Israa'iiliyiinta, ayay waxay soo urursadeen hubkoodii waxayna weerareen Gebicoontii. Kadibna Gebicoontii fariin ayay Yeshuuca u direen oo ay kaga codsanayeen inuu caawiyo iyaga. Yeshuuca Israa'iiliyiintii ciidankoodii ayuu soo ururiyey. Kadibna habeenkii oo dhan ayay isdaba galeen si ay u gaaraan Gebicoonta. Kadib subaxii hore ayay ka yaabiyeen ciidankii reer Amoor oo ahaa cadowgoodii, wayna weerareen. Ciidankii reer Amoor Ilaah ayaa ku tuuray jahwareer oo ku salliday dhagaxyo waaweyn oo qaar badan oo ka mid ah iyaga dilay. Ilaah isla maalintaa qorraxda ma uusan kaxayn oo weli cirka ayay dul joogtay si ay Israa'iiliyiintu isaga difaacaan ciidankii reer Amoor. Ilaah ayaa maalintaas caawiyey Israa'iiliyiinta oo guuleeyey iyaga. Kadib markuu Ilaah difaacay Israa'iiliyiinta, ayaa intii hartay ee Kancaaniyiinta isa soo aruursadeen oo ay soo weerareen Israa'iiliyiinta. Yeshuuca iyo ciidankiisa ayaa la dagaalamay, wayna ka guulaysteen. Dagaaladaas kadib, Ilaah wuxuu siiyey qabiil kaste oo ka tirsan Israa'iil dhul u gaara oo ka mid ah dhulkii Ilaah u ballanqaaday. Kadib
Ilaah nabad ayuu siiyey Israa'iil iyo xuduudahooda ku hareeraysan oo dhan. Markuu Yeshuuca gaboobay, wuxuu isugu yeeray dhammaan reer Israa'iil. Kadib, Yeshuuca wuxuu xasuusiyey dadkii axdigii Ilaah la galay reer Israa'iil markii ay joogeen buurta Siinaay. Dadkiina waxay ballan qaadeen inay daacad u noqon doonaan Ilaah oo ay raaci doonaan sharcigiisa.